shalay maxkamaddu waxay soo saartay go'aan ay ku soo dhaweynayso inay xisbada furan yihiin aragtiyaanada seed waxaan u arkaanu meeshan inayna wax cadaalad la yiraahdo ma taalaba cadaalad wax la yiraahdaa ma yaalaan waxaad arkaysaa in abiibina shalay la dhirbaaxay oo la feeday marka wax meeshan wanaag aanba cadaalad aanba dawladnimo aanba hor u socdo jira ma jiro bari dhaweyd waad ogeydeen in dalka laga madnuucay sigaarka dalkiyo bada oo dhexda loo joogsanayo gaarigu boona dhaafi jirin garbada dadku dhaafi jirin marka mar gabigeeni baa tan wada daba dhilifnaay meesha wax cadaalad u yaala ma jiro hata xisbi la furiyo hadaan la furin jiidisi qaadis oo jiidisi qaadis waa isla reergay wax yaala meesha ma jiro taana waan soo dhaweynaa maxkamaddu inay furto ururada siyaasiga sabab hadal balaga deesan waay waxaan jecelnahay maanta reecawda inay xusbi yeeshay furtaan ma doonaynaa hadal baladay way waxbaan leenahay waxbaan naga dhiman balaga deesan waay sababa maanta wayna maxkamadda soo sharax urur la sameystay weeyaan fakrigeyga dadka soo dhiibto anagoo diidan lahay maxaa kordhayay xisbooyinka la furayo sababtoo ah mushkiladooda iyo dhibaato badan bay soo jiidaysaa saan anigu arkayno gobolka iyaga weliba gobolka wadana haddaan joogno wadeel meel budinay daafada ka joogtaan ku soo dhawaada telefishinka caalamiga ee gobonimo TV magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal waxa uu wax ka weydiinaya go'aankii shalay soo saartay maxkamadda Soomaaliland asxaabta mucaaradka ee ururada siyaasadda Soomaaliland xisbiyada mucaaradka gabi ahaan diidanayeen ayaa maalamada shalay waxay soo saartay go'aan ay ku soo dhaweynayso inay ururadu furan yihiin hadda bulshada ku dhaqan magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal yaan wax ka weydiinaa aragtiyahan soo warkaan iyagu horta dhiilka waxay rabaan in iyagu buuxsadaan dabeedna adigana ay ku yiraahdaan xagga dambe kaalay anagu ma ogol anagu waxaan ogolahay in aanu madax banaanahay oo aan maartay keli tashan karro oo wax qabsan karro laakiin nolosha iyagu un baa isku koobay hadday dika tahay hadday jarnaar tahay hadday dhakhtar tahay waan furaynaa waan keenaynaa haddii ay yidhahdaan diyaar haa inaan guddoomiye noqdaan haa يعني مدح كان نقول أيام ديارو هاي إسكات لي أنا ليل كويه أقول بحسن وين ربع وماذا كله يعني وحنا علم بقى هلا قمر كان بقول وماذا ورد وين اسمه النقطة waxaan u arkaanu meeshan inayna wax cadaalad la yiraahdo ma taalaba cadaalad wax la yiraahdaa ma yaalaan waxaad arkaysaa in abiibina shalay la dhirbaaxay oo la feeday marka wax meeshan wanaag aanba cadaalad aanba dawladnimo aanba hor u socdo jira ma jiro bari dhaweyd waad ogeydeen in dalka laga madnuucay sigaarka dalkiyo bada oo dhexda loo joogsanayo gaarigu boona dhaafi jirin garbada dadku dhaafi jirin marka mar gabigeeni baa tan wada daba dhilifnaay meesha wax cadaalad u yaala ma jiro hata xisbi la furiyo hadaan la furinba oo jiidisi qaadis waa isla reergay wax yaala meesha ma jiro haye dadka xumaha maamulka keenaya soo dhaweynaa maxkamaddu inay furto ururada siyaasiga sabab hadal balaga deesan waay waxaan jecelnahay maanta reecawda inay xusbi yeeshay furtaan ma doonaynaa hadal baladay way waxbaan leenahay waxbaan naga dhiman balaga deesan waay sababa maanta wayna maxkamadda soo sharax urur la sameystay weeyaan iyo reer Soomaaliya lagu soo dhaweynaya in gaar ahaan xisbi aan leenahay reecawda ay furtaan xusbi reecawda leeyahay furtaan ma doonaynaa oo dadnimo ragnimo la yimaadaan sababa dad dood fadhiimayna waa inaan xaq gaar yeelan oo gobol gaar yeelan oo isku qolaa inay saddex xisbiyo kala furanayo waxaan soo noqonayaan adeernagu ma loo baahaya garan mayna waxay wadataan adeer meelaha la tagan xoogin bay laaqay meeshan dhexe un baa waxaan wada maray saddex ku keenan iyo maraan kugu furaynaa ay ku yiraahdaan intooda un baana soo baxaysa la socota laba xaalaba waan u soo dhaweynayaa xaaladda koobaad ee soo dhaweynayaa waxay tahay xaaladda koobaad ee soo dhaweynayaa waxay tahay haddii aan xisbiyadan hore awrku u dheelisanaa dhinacuun baa laga rarnaa shalay maanta laakiin mar haddii xisbiyadii la furay waan dheeli tiraynaa dhinaca kalena waan buuxinaynaa wixii laga cabanayeyna maantaynu gaadhaynaa hadduu alla dhaa insha allah gaara inta ay furtaan in leeg baan furanaynaa saaka ree Hargeysa inta xisbiya ay furtaan in leeg baan furanaynaa saaka xisbiyada mucaaradku inay furan yihiin bal ka shakhsiyaan aadi mawlid ahaan say kula muuqata assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta aragtayda anigu haddaan ka hadlo reecawda haddaan nahay anagu haddii xisbi la furo iyo haddii aan la furin waa isku kaay mid anaga waayo wax alla waxay noo soo kordhinayaan ma jirtaan waayo intaa oo sannadood ayaa ay dhallinyarteedu bilaa camal tahay eeriboorku naga xidhan yahay dikadii naga xidhan tahay waxa ugu sii daran dadka iyaga xeebta oo la cuno qabateeyey oo wixii ay ka ganacsanayeen hadday sigaar tahay haddii ay wax kala tahay laga xidhay kalluumaystadeeda arkaysay oo wax alla wax caawinaya aanay jirin seminaarra ma helo marka haddaan ree odolnahay haddii xisbi la furay haddii kaleba annagu wax alla waxay naga soo gaadhayaan waxba kama jiraan lanoo ogol yahay oo waa magacuyaal haddii lanoo furay lafteeda magacuyaal unbuu noqonaya wax lanoo ogol yahay ay noo ogol yihiin reerka aan jaarka nahay ma jirtaan ku leeyahay marka codka maraysa muxuu noqonayaa maanta anigu waxaan xukuumadda codsanka lagu marinayaa in cadaaladda laga shaqeeyo si ummaddan
si mida loo simo siminar haddii hargeysa lagu qabanayo buurama in lagu qabtaan lagu jecelahay jamhuuriyadda somalilan ayaa go'aamisay iyadoo laba raqam isku hayaan maxkamadda jamhuuriyadda somalilan ayaa go'aamisay in la furo asxaabta mucaaradka waxaan noo aragnaa si saxa maadaama loo baahnaa xusbiyada in la furo waxaan noo aragnaa si saxa haddaan gobolka hadalnahay waxa weeyaan xusbiyada marka la furo waa la tartamayaa cidda soo baxda ayaa xilka madaxtinimada u tartami doonta haddii la yidhaahdo in mataqaanaa asxaabta 10 sanaba mar la furo oo ay maxkamadduna ku raacday oo sidaa ay ku go'aamisay in xusbiyada la furo waxaan u aragnaa si saxa sharcigana raacaban leenahay asxaabta mucaaradka tartamana soona baxa hadda soo baxdiin waa layni codayni waana layni doorani madaxtinimada oo tartami kartaa ban leenahay anoo ka dhiibanaya go'aanka maxkamadda sare ee soo saartay wuxuu ahaa go'aan weli si fiican u cadayn laakiin haddaanu anagu mucaaradka xisbiga mucaaradka ee wadani waxaanu aragnaa inaanan maalinna madaxweyne muuse biixi maalinna saacadna lagu dareenin hadduu wakhtigiisa dhammaado waynu doorashada madaxtooyada waa inay soo horaysaa sare ee dastuuriga ah aad baan u soo dhaweynayaa waxay maxkamaddu ilaalisay wadajirka iyo qarannimada Soomaaliland go'aankaasi wuxuu gorgorxaad u yahay in doorashada madaxtooyada ay dhici doonto haddii la yiraahdo 13 bisha November kan xisbiyada ah ee 20 sanaba dastuurka xeer oo 20 sanaba iyo ka xisbahan haddaan hanay u cid ama xisbiyada mucaaradka waan soo dhaweynaa in la galo go'aankaasina wuxuu ahaa go'aan aniga ahaan in doorashada naba shaki kama qabno diyaarna waan nahnay in aanu galno doorasho toos ah haddii la yiraahdo haddaan nahay gobolka awdalna xisbi aan leenahay ayaan furan doonaa ka hor waxaan soo dhaweynayaa TV-ga gobonimo oo raay runtii ka bilaabay magaalada Boorama maanta way bishu tahay 17 bishii koowaad 2020 aniga raay ahaantayda waxay la tahay go'aan ka soo baxay maxkamadda dastuuriga in mataqaanaa ay hortaalay laba dacwadood oo ahaa dacwadii ay soo gudbisteen 24 xubnood ee urur siyaasadeedka doonayay iyo dacwadii ay soo gudbiyeen golaha wakiiladu dacwadii ay soo gudbiyeen golaha wakiiladu waxay ahayd mid balmarsan sharciga dhamaantii waxa dalku ku kala socdaa ama u yaala waa dastuur ka kooban 130 qodob weey 130 qodob dastuurka Soomaaliland qodob oo liba muhiimadiisu leeyahay ahmiyadiisa iyo madqana waajibaadkiisu wataa iyo madqana xeer doorasho iyo qodob dastuur la isku masaxay waa khalad waa Maxamed Farmaajo wararka warbaahinta ee Gobonimo TV magaalada Boorama.